iyadoo lagu soo qulqulayo shirka beelweynta Biciide waxa maanta madasha shirka loo asteeyay si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hogaaminaya Suldan Siciid Yusuf Ducale oo ay weheliyaan Suldan Axmed Faahiye Mire Ducale waxaana goobtaas ku soo dhaweeyay salaadiin Ducale siyaasiyiin haween dhalinyaro iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana madashaas hadallo kooban oo soo dhaweyn ah ka soo jeediyay salaadiinta gogasha dhigay Suldan Ibrahim Qoordheere iyo Suldan Ismaaciil Nuur Wacays وحنا هذا الله ذي كم دها. الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم إلهي توفيقنا هاي نوافقي دفقنا الله دافع رحمة واسع الله كدي واركتان وحروب دعاية وقتنا ونقول كابيه وحنا لنا هاي سود وادا وفتق نوقيم ألف وين يوم حنكل الريل ألفين ونسود وادا أخيارك كلا الدبانة ويالك كلا دبي maxaan ku idhaahdaa guurtida kale weftiga la socotay waxaanu idinku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh goobtan waa goobtii aan gogasha dhignay ee dagaar ahayd ee gogasha Biciide Yoonis aanu dhignay hadal badan wax ma gooyo berina insha Allah taala xafladii iyo shirkii baa furmi doona ergadiina waa isu soo dhamaatay wax weyn ma hadhin الله يعيشكم سود وهذا ذلك دبديس يجوديس بوحي دنينا يا بعيداه والشركة هكا قدينا وغلسيني هكا قدينا ورسل أصلا إذا كعدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كل دارين معي. وحنكون سلام يا مدشة يوفتين وقامني يا سعيد أو يوسف يو مواد ودي كره ولا الضالين وسير هذه بأمرية وحمرية نبضونا شوف عقلدي ورتدي علمدي حلدوانا دي عيد ما مقنع ما إن شاء الله إلهي بمهدله وحنكون سلامنا وفتقاه سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دبدين واحد وقتها ما كل شيء قبل سوالف ترى هل كان واحد دقار وبعيدة يونس برتيان جوجشة وكشريان ودقنا إلهي بمهدله ما أنتنا إركي وسلا وهورية يوفتقي وهورية بهالك كل ما الحمد لله رب العالمين إله بانو مهدنا قين انت هذا بديد وحوي شركو ما أنت وحيمي إرقدي أحمد فارح يد لوحي كباقي هابايمي برهنا بقر كيو بهوا طبعا ويجينا طبعا شركو وفرنينا نبتقليو يا شرف يا كمال بانو كفرينا مركو يسوع صور ما هذا نوافرنا هدي هذا هاي كرت مركو بريل قالوا هذا نوع كسود وين يا وفد قالوا كسود وهذا gabagabadiina wafdida ballaaran ee maanta madasha lagu soo dhaweeyay ayaa dhankooda ka mahadnaqay sida diiran ee loo soo dhaweeyay wuxuuna hadalkooda u dhacay sidan aad baan u faraxsanahay mahad ilaahay baale mahadda labaad waxaan u naqaynaa beesha baxsan buur Biciide ee gogasha dhigtay waxaanu kaloo ka mahadnaqaynaa sidii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee aanan hore u arkin ee naloo soo dhaweeyay ee intaasoo kiiloomitir la kaga hor yimi fardo baabuur dad dumar waanu ka mahadnaqaynaa sida noo soo dhaweyseen waa wax ay aad gobannimo iyo waji furan iyo tolimo ay ku dheehan tahay shirka Biciide Yoonis ee gogoshiisa beeshan u leedahay waxaanu u soo sharafnay si qiimo leh waxaad ku garanaysaa maanta waxaanu wada nimi mar kii Hargeysa joogay iyo kii joogay xeeb joogay iyo kii Nugaal joogay iyo kii Ceelfoon joogay iyo kii walba beeshu way dhan tahay xildhibaan baan maqnayn gudoomiyaha qurbajoogaan maqnayn chief caaqil baan maqnayn Ducale baan maqnayn culimaan maqnayn mar baanu wada nimi si anagoo ku fekerayna qiimaheeda uu leeyahay shirku waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqayaa hadalku waa inoo dambayn doonaa waanadu waa inoo dambayn doontaa go'aamadu waa inoo dambaynayaan waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo meel la yiraahdo golaha mideynta Biciide oo har iyo habeen soo jeeda oo har iyo habeen shirkan ku fekeraysa oo har iyo habeen qaylinaysa oo aan ka seexano isbedesha 24 saacadood isbedesha ayaan iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waana idin hirgashay qayladiinii madashiina waanu joognaa waxa dhiman oo qura
waftiga uu hogaaminay boqor Cismaan oo Maxamuud aanu berri filayno waxaan leeyahay sidaa ku nasta sidaa ku seexda waa jecel lahay mahad iyadoo aanu naqayno ninkii heesay wuxuu yiri ilaahow kufri mayno kibir uga dhawaarmayna shirkana kalkii galaaye in yaro hoolebina nolol ku dhufto shirkana aynu intaas ku nasanno aad iyo aad buu mahadsantii alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdu salaadiinta halkan dee gogasha dhigay ee ehelka iyaga ah ee Ismaaciil Nuur Wacays iyo Ibraahim iyo guud ahaan ardaagan Basanbuure halkan muxuu isugu yeeray beesha Biciide Yunis waanu mahadnaqaynaa 100% waxaan u mahadnaqayaa 1000 marra kun jeer baan u mahadnaqayaa beeshan Biciide Yunis halkan maanta isugu timay ku shiraysaa waa beel weyn waxay ila tahay anigu dee haddaanan markii aanan dhalan ay shireen waa markii ugu horeysay shir beesha Biciide Yunis aan imaado وانا بيلوين وافر قبل ويران بي دقنتهاي وسناق يا صول يا ساحل بري يا توغدير يا سرار انت بوي دقنتهاي وانا بيلوين ان ما انت انا waxa weeye guul bay u tahay waxaan dhalinyarada iyo ergooyinka alle shirka weyna inta leega maanta ay isugu timi beesha inta leega intaas digtaa waxa weeye waa in la ilaaliyaa itikiskiisa iyo muxuu ahaa kuntiga dhiisha la isaga dhigaa Soomaaliland waxaan idin sheegayaa inay wada eegayso wada daawanayso shirka halkan ka dhacaya ee halkan dagaal ka dhacaya waa shir weyn shir la dhayalsan karo maaha aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku mahadnaqayaa Suldan salaamu taala anaguna waxaan u soconay mahadnaqa aanu idin mahadnaqnay kadib inaanu ka qayb galno shirkan isaga ah ee Biciide Yunis kana shaqeyno sidii uu guuleysan lahaa ee ugu dhamaan lahaa guul iyo gobonnimo iyo ujeedadii laga lahaa si ay uga soo bixi lahayd ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu shirka Biciide Yunis ka dhigo mid Biciide Yunis ku badhaadho beelaha iyo jaarkiisa faraha badan ee ballaaranina uu ku badhaadho oo kula noolaado marka Biciide Yunis badhaadho jaarkiisuna waa badhaadhaya waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu Biciide Yunis shirkiisa ka dhigo shirkii taabagala ee ujeedada laga leeyahayna ilaahay markaa uu inoo fudaydiyo waxaan kaloo guubaabinayaa ergooyinka shirka isugu yimi kuwii naga soo horeeyay kuwa naga dambeeyay ka maqli doona halkanba inuu dhammaanteen u guntano nin walba waa naftaadii waa magacaagii oo wixii aad ku noolaan lahayd nin walba inuu isku dayo sidii shirkaasi u guuleysan lahaa wabillahi tawfiiq mahad waxaa leh rabbi subxaanahu wa tacaala buqacad buucqadiisa ka mid isugu keenay innagoo xayi ah dhammaanteen oo aan meyti ahayn shukri ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ilaahay noo shukri noqono markaa mahadda ilaahay kadib waxaan u mahadnaqayaa salaadiinta aniga halkan fadhisa ee gogasha dhigtay oo midna uu walaalkay yahay midna abtigay yahay ka kale ag fadhiyana waa adeerkay marka anigu si gooni aan u xafladaynayaa Ibraahim Cige Ismaaciil ana Caashe Ismaaciil baa dhashay qudara in adeertii baa dhashay Siciid Yusuf maadeer baa dhashay marka aniga laba xafladood bay ii tahay oo waxaan ahay labada xafadood ah runtii laakiin xafladeedu waxay dhamaystirmaysaa ninkii jiray wuxuu yiri allo sima loo aas waa hadii aan ku raaco maalinta xafladu dhamaataan aan boodboodayaa aad u xafladayn doonaa insha Allah taala waxaynu nahay ummad dalkan kule meeqaam sare iyo magaceena waxaa mas'uuliyaddu ka saaran tahay qof walba oo ergada kamida iyo nima ergada kamida in habsho waxaa muhiim markaa shir waa la qabtay waa qurux laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inuu shirku ujeedooyinka uu leeyahay laga gaaro la isku jeclaado la isugu soo dhawaado dano laga gaaro mustaqbal laga gaaro insha Allah taala hadalkeedu ku badin maayo mukhtaar maxamed diiriye mukhtaar jambaq warbaahinta Sanaag Times dooxada Dagaar